way kulanti wanaagsan saaxiibayaal soo dhawaada waxaan rabaa inaad la wadaago talaabada culus iyo qorshaha Axmed Madoobe oo si weyn u hirgalay iyo waliba sidoo kale hadallo culus oo ka soo baxaya maamulka Jubbaland iyo waliba sidoo kale casho sharaf cajiib ah oo loo sameeyay xildhibaanadii labada qal ee baarlamaanka Soomaaliya ku metelayay maamulka Jubbaland iyo waliba go'aano kale oo la filayo maalmaha soo aadan in ay soo saari doonaan madaxtooyada Jubbaland qabanqaabo culus ayaa ka socota odayaasha dhaqanka deegaankaasi ama gobolkaasina waxay si weyn ugu howlan yihiin in ay hirgeliyaan talaabada Axmed Madoobe haddaba maxaa ka socda maamulka Jubbaland maxay tahay talaabada culus ay qaadeen xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ku metela maamulka Jubbaland dawladda Soomaaliya xogtaas ayaa rabaa in halka kugu la wadaago maxaa ka soo kordhay casho sharaftii xalay loo sameeyay xildhibaanada labada aqal ee markaasi casuumaad halkaasi looga sameeyay soo dhaw sax muuqaalka sheer gare oo meel dheer nala gaarsiiday kuna aragtidiina qaybta hoose faalada ayaad inagu wadaagi kartaan waayahay madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam iyo waliba sidoo kale xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ku metela maamulka Jubbaland ayna tahay deegaan doorashadooda Jubbaland ayaa casho sharaf cajiib ah loogu sameeyay qasriga madaxtooyada maamulka Jubbaland iyadoona markaasi dhammaan xildhibaanada halkan ee ku metelayay ay ka soo qayb galeen iyo xildhibaanada golaha deegaanka ee maamulka Jubbaland taasi oo hadda u muuqata in markaasi qorshihii Axmed Madoobe ahaa in uu qabanayo doorasho madax banaana markaasi ay si weyn u hirgeli doonto iyadoona markaasi haddu ay tahay xaaladuna ay u muuqato in Axmed Madoobe hadafkiisi ahaa inuu qabanayo doorasho qof iyo cod ah dalkan aan dhahay markaasi doorasho dadban oo markaasi isagu rabo inuu albaabada u xirto oo ka hirgeliyo deegaanada Jubbaland hadda ay u muuqato in ay dhaqan gashay misana markaasiba ay si toos ah u hirgashay waxaana sidoo kale xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ku metela deegaan doorashadooda ay tahay Jubbaland si weyn ay u qaadaceen misana ay u qaateen fikirka ah Axmed Madoobe inuu markaasi isagu qorshaha ama siyaasadda Jubbaland isagu uu maamulo taasina oo ay hadda ay tahay in xildhibaanadu iyaguna ay ku raacsan yihiin oo ay rabaan in ay markaasi u gacan haatiyaan doorashada dadban ee Axmed Madoobe markaasi rabo in uu ka qabto deegaanada Jubbaland ay ku raacsan yihiin maadaama ay yihiin xildhibaano metelaya dadka deegaanadaasi Jubbaland isaguna madaxweyne uu ka yahay casho sharafta xalay loogu sameeyay qasriga madaxtooyada Jubbaland waxaa hadallo cajiib ah ka soo kala dhaxbaxayay xildhibaanada labada aqal iyo waliba sidoo kale xildhibaanadii kale halkaasi joogay golaha deegaanka iyo waliba sidoo kale odayaasha dhaqanka ee halkaasi oo Axmed Madoobe markaasi dhaxda ugu jiro in masiirkoodu iyagu ay markaasi ka adkihiin ama meel ay saari karaan oo iyaduna markaasi qofna inaan u hoos fariisanaynin waxaana sidoo kale jirta qorshe kale oo ku aadan in maalmaha soo aadan kulamo xasaasi ah halkaas ay ku wada yeelan doonaan xildhibaanada labada aqal iyo waliba sidoo kale madaxweynaha maamulka Jubbaland taasi oona markaasi wax weyn ka bedeli doonto in qorshaha Axmed Madoobe si toos ah u hirgeli doonaan ay u muuqato odayaasha dhaqanka ama ganacsatada maamulka Jubbaland ayaa dhankooda si weyn oo la dhacsan talaabada Axmed Madoobe uu qaaday ee ku aadan doorashada dadban taasi oo hadda markaasi u muuqato in dalku ay markaasi gelin karaan ama ay ka qaban karaan deegaanada Jubbaland iyo waliba sidoo kale magaalooyin kale ee ku gaadaamanba Axmed Madoobe ayaana talaabada uu qaaday u muuqata isaga oo ahaa markii hore ama sanadihii ugu dambeeyay 2022 2023 saaxiib dhowna la aha madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud laakiinse markii ay timaaday shirka golaha wada tashiguna ay markaasi ku kala aragti duwanaadeen go'aankiisana uu ahaa in aanan dalkan laga qaban karin doorasho qof iyo cod ah oo su'aalo fara badan la iska weydiiyay waxaana sidoo kale halkaasi ka muuqata in markaasi si weyn ay u raacsan yihiin ama ay ula fikir yihiin maamulka ee halkaasi ka jira iyo waliba sidoo kale xildhibaanada labada aqal ee ku metelaya baarlamaankuba in Axmed Madoobe markaasi aragtida siyaasadeed ay kala simeeyeen taasi oo odayaasha dhaqanka iyo ganacsataduba ay horey u sheegeen ay cadeeyeen mowqifka Axmed Madoobe inuu yahay in markaasi Jubbaland ay qabanayso doorashada ee markaasi dadban ee ay iyagu markaasi rabaan in ay albaabada ay u xiraan wixii warar kale ee ka soo kordha halkan ayaa idinku wadaagi doonaa saaxiibayaal barteena ka mid noqda saaxiibada maalinlaha ee wararkeena ula socdo